Kani waa gujis, waa mid ka mid ah hubabka ugu horumarsan ee yaala adduunkan. Dalal badan oo caalamka ah ayaa awood sare ku leh dhanka difaaca ciidamada badda. Qayb yar oo farakutiris ah ayaa leh maraakiibta waaweyn ee diyaaradaha xambaara. Keliyana in yar oo ka sii mid ah ayaa leh maraakiibtan badda quusta ee loo yaqaano gujisyada. Waxay gujisyadu xambaaraan madaafiic iyo agab military oo wax badan ka awood badan saanada ay qaadi karaan maraakiibta waaweyn ee dagaalku. In badan oo ka mid ah ayaaba xambaara gantaalada baalistiga ah ee qaaradaha isaga kala goosha, madaxyada nukliyarka iyo madaafiicda laga rido. Tusaale ahaan, wax ka badan 40% madaxyada nukliyarka ee uu leeyahay Maraykanku ayaa ku rakiban gujisyada ay leeyihiin ciidanka dalkaasi. Gujisyada oo kala awood badan ayaa qaarkood gunta hoose ee badda ku jiri kara wax ka badan 4 bilood. Haddaba, sidee u shaqeeyaan gujisyadu? Maadaama sida ka muuqata sawirkan ay yihiin maraakiib iyaga oo dhan qafilan oo xitaa dusha ka xiran, gunta hoose ee baddana ay ku yar tahay oksijiinta, meelaha qaybtoodna aysanba oksijiin dhan ka jirin. Sidee u helaan askarta iyo shaqaalaha kale hawada ay ku neefsadaan, biyaha nadiifka ah iyo tamarta? Sidee iyagana loo maareeyaa? Muuqaalkeenna maanta ayaynu ku eegi doonnaa qaabka ay u shaqeeyaan gujisyadu iyo sidoo kaleba awoodaha ay la gaarka yihiin. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Waabari Media. Ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. Intaynan u gelin muuqaalkeenna, Waabari Academy waxay kugu bishaaraynaysaa in wixii hadda ka dambeeya dhammaan koorsooyinka ku jira website-keenna aad ku iibsan kartid hal qiime oo ah $26 oo keliya, adiga oo qiimahan ku helaya dhammaan koorsooyinka ku jira website-keenna ee kala ah siraha muuqaal samaynta, barashada Premiere Pro, samaynta website-yada adiga oo adeegsanaya WordPress, barashada Photoshop iyo sidoo kaleba barashada barnaamijka CapCut. Dhammaan koorsooyinkan iyo sidoo kaleba koorsooyinkeenna soo socda muddo sanad ah waxaad ku heli doontaa qiime go'an oo ah $26 oo keliya. Isdiiwaangeli hadda oo ka faa'iidayso fursaddan, lana wadaag saaxiibada si ay iyaguna uga faa'iidaystaan. Magaca gujis waxaa loogu yeeraa markab ama gaadiid badeed kasta oo awood u leh inuu quuso badda. Waxay noqon karaan kuwa loogu talagalay cilmi baarisyada sayniska iyo kuwa dalxiiska ee lagu soo eego qaybaha hoose ee badda. Sidoo kale noocyada ugu waaweyn gujisyada uguna horumarsan ayaa ah gujisyada dagaalka. Gujisyadan ayaa waxaa markii ugu horeysay adeegsaday ciidamada badda ee Jarmalka dagaalkii koobaad ee dunida, iyaga oo gunta hoose ee badda kaga yimid kadibna duqeeyey maraakiibtii dagaalka ee dalalkii ka soo horjeeday. Isla Jarmalka ayaa mar kale adeegsaday dagaalkii labaad ee dunida, kadibna waxaa xigay Maraykanka oo isaguna noocyo yaryar samaystay intii uu socday dagaalkii labaad. Gujisyada ayaa noqday awood ay u qalab qaataan samaynteeda dalalka waaweyn ee miisaaniyadda culus ku bixiya difaaca. Sanadkii 1955 dalka Maraykanka ayaa samaystay gujiskii ugu horeeyey ee ku shaqeeya tamarta nukliyarka, kaasi oo noqday mid jiho cusub u furay dhanka difaaca iyo awoodda badda. Sida ay qortay shabakadda Statista, 6 dal oo keliya ayaa si rasmi ah u leh gujisyada waaweyn, kuwaasi oo kala ah Maraykanka, Shiinaha, Ruushka, Hindiya, Ingiriiska iyo Faransiiska. Dalka Maraykanka oo ah kan ugu awoodda badan xagga difaaca dalalka adduunka ayaa leh 68 gujis oo dhammaan ku shaqeeya tamarta nukliyarka. 11 ka midana ay yihiin kuwa xambaara madaxyada nukliyarka. Ruushka ayaa leh 57 oo 36 ka mid ah ay ku shaqeeyaan tamarta nukliyarka. Shiinaha ayaa isaguna leh 60 gujis oo 10 keliya ay ku shaqeeyaan tamarta nukliyarka. Ingiriiska ayaa isaguna leh 11 dhammaan ku shaqeeya tamarta nukliyarka. Faransiiska ayaa leh 10 gujis oo dhammaan ku shaqeeya nukliyar, halka Hindiya ay leedahay 17 oo hal keliya uu ku shaqeeyo tamarta nukliyarka, uuna ka yahay kan keliya ee leh awoodda xambaaridda gantaalada baalistigada ah. Dalka Australia ayaa isaguna dhowaan la filayaa inuu ku soo biiro awooddan oo uu helo gujis ku shaqeeya tamarta nukliyarka. Horumarka tiknoolajiyadda ayaa gaarsiiyey in gujisyada lagu xiro qalabyo hoos u dhigaya guuxa ay samaynayaan markay soconayaan, kaasi oo keeni kara in la ogaado ama hirarka difaacyadu ay soo qabtaan
waa awood baaxad weyn oo uu ku rakiban yahay hub daldhan waqti yar ku burburin kara inta badan gantaalada masaafada dheer jara ee loo yaqaano baalistiga ayaa lagu rakibaa gujisyada si ay meel fog wax uga toogtaan. gujiska loo yaqaano USS Ohio ayaa in muddo ahaa kan ugu weyn gaadiidka dagaalka ee loo yaqaano gujisyada, kaasi oo xambaara markiiba 24 gantaalada waaweyn ee baalistigada balse hadda wuxuu ku jiraa kaalinta saddexaad. waxaa ka horeeya labada gujis ee Ruushka ee kala Typhoon oo xambaara 40 gantaal oo baalistig iyo Borey oo xambaari kara 25 gantaal oo baalistig Maraykanka ayaa ku howlan in uu dhowaan soo saaro gujis loo yaqaano Columbia class oo bedeli doona nooca aynu soo sheegnay ee USS Ohio oo dhowaan 40 jirsanaya. haddaba gaadiidka dagaal ee sida u awoodda badan sidoo kalena xambaaraya madaafiicda aadka u halista sidee ayuu ugu dhex quusaa badda isaga oo gaari kara ilaa 3,000 oo fiit gunta hoose ee badda. gaadiidka badda sida maraakiibta waxay qaybaha hoose ku leeyihiin dhinacyo loogu talagalay inay isku dheelitiraan miisaanka markabka si looga ilaaliyo in uu badda hoos u galo. haddii qaybtaasi ay howlgab noqotana waxaa meesha ka baxaya badqabka markabka oo luminaya dheelitirka kadibna quusaya, mana awoodo markaa kadib inuu kor u soo laabto. gujisyada ayaa u shaqeeya hab la mida maraakiibta marka la joogo ku socoshada oogada sare ee badda, balse waxay dheer yihiin in ay awood u leeyihiin inay badda ilaa heer hoose gudaha ugu quusaan marka la doonana uu gujisku bannaanka u soo baxo. gujiska ayaa wuxuu leeyahay qaybo hoose oo marka uu quusayo biyuhu ay ka buuxsamaan si ay awood ugu siiyaan inay hoos u jiidaan oo quusiyaan. marka uu tago halkii uu istaagi lahaana wuxuu sii daayaa qaybo ka mida biyaha halka qaybta kale loo reebo in dheelitirka awooddu aysan lumin. marka uu doonayo inuu bannaanka u soo baxana wuxuu iska bixiyaa biyaha kadibna kaydkii biyaha ayuu u beddelaa hawo si cufkiisu uu u fududaado oo bannaanka uu ugu soo baxo. gujisyadu waxay wajahaan 4 caqabadood oo haddii midkood xal loo waayo ay adkaanayso in uu gujisku hoos ku jiro, taas oo helidda oksijiin, biyo nadiif dheelitirka heerkulka iyo helidda tamar ku filan oo sahlaysa inuu si caadi badda hoosteeda uga dhex howlgalo. hawada laga helo oogada dhulka waa 4 nooc oo keliya oo kala oksijiin, nitrogen, carbon iyo argon. waxaynu neefsannaa oksijiin, jirkeennuna wuxuu sii daayaa kaarboon. labada hawo ee kalena lama falgalo jirkeennu. haddaba bal qiyaas markab wada qafilan oo meel walba ka xiran marka qof walba uu jirkiisu sii deynayo kaarboon uuna doonayo inuu qaato ama neefsado oksijiin, xaaladdu sida ay noqon karto. haddaba xaaladdan si loo maareeyo waxaa gujisyada ku rakiban haamo waaweyn oo oksijiin kuwaasi oo loogu talagalay in ay howlwadeennada saaran gujiska siiyaan oksijiin ku filan ilaa iyo muddada loogu talagalay inuu quusidda ku jiro. qalabkan ayaa sheegaya xaddiga oksijiin ee haray, taas oo marka ay xadkii loogu talagalay gaarto khasab ka dhigaysa in gujisku bannaanka u soo baxo si uu oksijiin uga qaato hawada kadibna uu ku kaydiyo haamaha ku rakiban. waxaa sidoo kale ku rakiban agab loogu talagalay inuu nadiifiyo kadibna burburiyo kaarboonka uu jirku sii deynayo oo haddii uusan helin meel uu ka baxo noqonaya sun diraysa dadka saaran gujiska. aynu u nimaanno biyaha. dabcan biyaha baddu kuma habboona cabbidda heerka cusbada ku jirta oo saraysa awgeed. dhanka kalena wax sahlan maahan in markab loogu talagalay in uu quuso muddo ka badnaan karta ilaa 4 bilood uu sii qaato biyo ilaa wakhtigaa ku filan. haddaba waxaa isweydiin mudan sidee ku helaan biyo nadiif oo ku filnaan kara muddada intaas la eg. maraakiibta si guud gaar ahaanna gujisyadu waxay leeyihiin qalabyo awood u leh in biyaha badda ay ka saaraan cusbada una beddelaan biyaha caadiga ee la cabbo. gujisyada waaweyn sida kan Maraykanka ee USS Ohio ayaa awood u leh soo saaridda wax ka badan 150,000 oo litir oo biyo nadiif maalintii, taasi oo kayd ahaan iyo adeegsi ahaanba ku filan howlwadeennada saaran. biyahan ayaa loo adeegsadaa howlaha kala duwan sida cabbidda, mayrashada, qubayska, cunto karinta iyo ku qaboojinta matoorada iyo qalabka kale ee gujiska. heerkulka gunta hoose iyo qaybaha dhexe ee gujisku ku socdo ee badda waa mid ka qabow qaybaha kale ee badda
kuma sii jirto xilliyada qaboobaha oo qaybo badan ay baraf isku beddelaan. Gujisyadu waxay leeyihiin awood ay oogada markabka uga dhigaan mid leh heerkul ka difaacaya cimilada bannaanka, kana ilaalinaya in dusha, dhinacyada iyo hareeraha gujiska ay isku beddelaan baraf ama heerkul aad u qabow oo wax ka beddeli kara heerkulka ka jira gujiska dhexdiisa. waxaana sii caawiya qalabyo ku rakiban gudaha oo samaynaya heerkul caadi ah oo dhexdhexaad ah. dhammaan awoodaha aan soo sheegnay waxay u baahan yihiin tamar suurtagelin karta inay si hagaagsan u shaqeeyaan, in gujisku helo koronto ilays ah, awood quusid, socosho iyo soo bixid, awood uu badda hoosteeda muddada intaas la eg si caadi ah ugu jiri karo. haddii xaalad dagaal timaadana uu u tuuri karo madaafiicda ku rakiban. gujisyada waaweyn ee wakhtiga dheer badda ku jira dabcan kuma filna tamarta ay ka helaan shidaalka iyo saliidaha kale, oo awoodda ay u baahan yihiin oo aad u badan ayaa diidaysa inay xambaaraan shidaal aad u badan oo lala quuso. qaybo yar oo ka mida gujisyada ayaa ku shaqeeya naaftada, waana kuwa gabowga ah ee masaafada fog aan gaari karin, wakhtiga badanna aan ku jiri karin badda. gujisyada casriga ah waxay ku shaqeeyaan awoodda nukliyarka, taasi oo qaarkood ay ka mid tahay habdhismeedkooda, muddo badanna aan u baahnayn tamar lagu shubo, halka qaarna marka ay sharaacanayaan lagu shubo xaddi yuraniyum ah oo dhowr bilood siin kara gujiska. dhammaan tamarta wuu u baahan yahay inuu ku shaqeeyo. gujisyada leh tamarta nukliyarka ayaa aad uga baaxad weyn kuwa noocyada saliidda ku shaqeeya. dalalka Maraykanka iyo Ruushka ayaana ah kuwa leh tirada ugu badan ee noocyadan, sidaynu ku soo sheegnay bilowga muuqaalka. intaas ayaynu ku soo gebagabeynaynaa muuqaalkeenna maanta. haddii uu ku qanciyey muuqaalku, ha ilaawin inaad like inoo saartid. haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran. mahadsanidin.